runtii aad ula yaabay warar ka soo baxayay taliska ciidanka ee Hargeysa iyo madaxweynahooda maalmo dhaweyd oo ay tababaro u xidhayeen dhalinyaro aan isleeyahay xabaashooda la soo fogay oo ay tilmaameen markii uu hadlayay uu sheegay inay awal gobonnimo dagaalamayeen laakiin hadda wixii ka dambeeya ay gudnimo dagaalami doonaan waxaan leeyahay nina wuxuusan ahayn ma doono anigu oran maayo awalba gobaad ma ahayn afkayga laga maqli maayo laakiin waxaan leeyahay haddii ay jirto u dudayso gudnimo ku hadhay oo aad u dagaalanto intii aad samaysay ka baxsan waxba ha habran baan oran lahaa ninka taliyaha ah madaxweynaha maamulka oo sheegay in shacabka ay u turayeen waxaan leeyahay gabay waadan carablahaaba waxa ku jirtay mar haddii ay tacashiirada dhacdo oo taageeruhu liicumanin loo turaanahay aniga ay tayada noqotay waxaan leeyahay turaal inooma dhaxeeyo waxa aad geysateen waxaad ku dartaan oo maanta aan isleeyahay way u ciil qabaan ma jirto wixii tamareedun ku haray aad keenteen oo kuwa ugu dambeeyay aan sheegay xawaalahooda fogeysan kamid yihiin diyaar baan u nahay laakiin mar walba mas'uuliyadda waxayna faraysaa inaanu nidhaahno war halka aad ku soo socotaan meel aad xaq u leedihiin aad u soo socotaan ma annaga go'aansanay oo taladayada qaadanay inaanu ku dagaalano sharaftayada inaanu u dhimanno laakiin inamada aad halka keenaysaan ee hooyooyin ku goblamayaan ee qaar asay ku qaadayaan ee qaar ku agoomobayaan aan garanayn sabab ay u dhimanayaan waxaanu idin kula talinaynaa intii goortay inaad la noqotaan dii ay taadiido waxaan u malaynayaa nin walba wuxuu hayo buu golaha la iman doonaa insha Allah taala annagana waxaanu aaminsanahay waxaanu u dhimanaynaa inay tahay xaqaanu leenahay inay tahay sharaftayadii inay tahay difaaca dadkayaga iyo maatadayadii arinta iyada ah waxaan u xusuusinaysaa marka uu ninka la yiraahdo faanki iyo baankii badnaaya ka muuqday ninka la yiraahdo Muuse Biixi hadraawi baa gabay ilaah waxa ku jirtay haddii aan dhufaan isku sayday dhabidii dhirta man jajabiyo aan badhoosha ka cartamo waxaan leeyahay warday adigu maanta aad baanayso adigoo dhibaatada inta la eegeystay adigoo aan u dhalan inaad baanto waxa aad naga fili karto garan maayo insha Allah taala waxaan leeyahay oo aan dadka reer Puntland aan hor joogay madaxdooda u ballan qaadayna dagaalka ka socda laascaanoodu uu guuleysanaya guushiisuna dheeraan mayso taladeeda deegaanka iyo dadkaana waxa wadale intii u dhimatay idin kama lihin insha Allah taala waxay noqon doontaa munaasabadeeda inaynu u dabaaldegno oo ku dabaaldegno gogashaynu isugu nimaadnaa ay noqoto magaalada laascaanood inaanu ku dagaalano sharaftayada inaanu u dhimanno laakiin inamada aad halka keenaysaan ee hooyooyin ku goblamayaan ee qaar asay ku qaadayaan ee qaar ku agoomobayaan aan garanayn sabab ay u dhimanayaan waxaanu idin kula talinaynaa intii goortay inaad la noqotaan dii ay taadiido waxaan u malaynayaa nin walba wuxuu hayo buu golaha la iman doonaa insha Allah taala annagana waxaanu aaminsanahay waxaanu u dhimanaynaa inay tahay xaqaanu leenahay inay tahay sharaftayadii inay tahay difaaca dadkayaga iyo maatadayadii arinta iyada ah waxaan u xusuusinaysaa marka uu ninka la yiraahdo faanki iyo baankii badnaaya ka muuqday ninka la yiraahdo Muuse Biixi hadraawi baa gabay ilaah waxa ku jirtay haddii aan dhufaan isku sayday dhabidii dhirta man jajabiyo aan badhoosha ka cartamo waxaan leeyahay warday adigu maanta aad baanayso adigoo dhibaatada inta la eegeystay adigoo aan u dhalan inaad baanto waxa aad naga fili karto garan maayo insha Allah taala waxaan leeyahay oo aan dadka reer Puntland aan hor joogay madaxdooda u ballan qaadayna dagaalka ka socda laascaanoodu uu guuleysanaya guushiisuna dheeraan mayso taladeeda deegaanka iyo dadkaana waxa wadale intii u dhimatay idin kama lihin insha Allah taala waxay noqon doontaa munaasabadeeda inaynu u dabaaldegno oo ku dabaaldegno gogashaynu isugu nimaadnaa ay noqoto magaalada